السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب السوداء ملبو دفاد الميوزك كان كذا ونسان وعبد الله حسين ميعي وعبد الله حسين سوداء صاحب يال وحمل هنا انت بدن channel كوا كما مقنا هاي وحواي مشغول الدنيا اسكجرو لكن ان شاء الله مر مركان سو لابتو اما مركان هو سو لابتي waxaan jeclahay mar balba muuqaal xasaasi ah oo aslee dadku u faa'iideynaya inaan ka hadlo maanta waxaan rabaa saaxiib inaan ka hadlo waxa loo yaqaan AI-ga oo hadda trending ah dhalinyarteena Soomaaliyeed ama dadkeena badan waxaa la moodaa AI in laga harayo because wax walbo la soo sameyn jiray hore waynu ka harnay applicationada caadiga loo develop gareyn jiray la isticmaali jiray Java, C++, PHP, Python waa ka soo harnay hadda wixii dhan waxay isku bedeleen AI marka AI-gaas inaan ka harno ma wanaagsano sidaa daraaddeed dadku waxay u maleeyaan intooda boqolkiiba 99.9 waxay moodaan qofka background IT leh keliya in loogu talagalay barashada AI laakiin maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego saaxiibayaal laba qaab anoo u kala saarayo hadda xitaa haddii aad ka mid tahay dhalinyarta aanan wax background ama wax coding lahayn qaabka aad u baran karto still waxa loo yaqaano AI-ga ayaan insha Allah maanta muuqaalkeena kusoo koobaya waxaan u kala saaraya wax loo yaqaano oo technical coding iyo wax loo yaqaano non technical coding waa dad yaqaano qaabka wax loo code gareeyo oo IT-ga soo bartay ama computer science ama software engineer soo bartay iyo dad ku cusub oo waxa waaye aan wax haba yaraatee no background of IT leh insha Allah marka soo dhawaado waxaan ku bilaabayaa saaxiibayaal dadka loo yaqaano oo technical background coding kale AI-ga waxaan u maleynayaa waa waxyaabaha trendinga hadda ah mustaqbalka iyo kan kasii dambeyn noqon doona sababta wax kale ma ahan waa in howlaheenii maalinlaha ahaa ama howlihii aan qabsanaynay ee maalinlaha uu fududeeyey haddii lagu diro maanta magaalo oo lagu dhaho waxaad soconaysaa 100 kilomitir magaaladaas u soconaysa iyo haddii lagu dhaho magaaladan waxaa u soconaysaa isla magaaladii aad u soconaysaa 1,000 kilomitir dabcan waxaad dooran lahayd 1,000 kilomitir qofna 100 kilomitir kuma dooran karo 1,000 kilomitir AI-gana waa la mid haddii howl lagu dhiibo hawshaas haddii ay kugu qaadan jirtay muddo 3 maalin 4 maalin ilaa 5 maalin haddii kugu qaadan jirtay hadda waxaa suuragal ah waxaas dhan inta laga soo gudbay hawshaadii oo dhan inay kugu soo koobmato waxa loo yaqaano 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo waa isweydiinaysaa marka waxaad leedahay warniyow hawshaas maadaama ay sidaas tahay qaabkeen macnaha sameeya ama maxaan yeelaa baa is leedahay waan ogahay waa isweydiinaysaa marka waxaan rabaa saaxiib inaan kuu sheego haddii aad dadka technical coding-ka ah waxyaabo waxaa jira ay qasab tahay inaad baratid oo aad raacdid waxaan ku hormaraya dadka technical coding-ka ah ama dadka coding-ka bartay kow horta AI maxaa la isku dhahaa AI-ga waa package dhan oo dhammaystiran magaca kore ayaa AI laga dhahaa dadkeena badanaa waxay moodaan AI-ga ChatGPT iyo applicationada muuqaalada iyo sawirada ku hagaagsanan keliya inuu AI yahay AI waa artificial intelligence magaca guud ayuu ka yahay AI ama garaadka macmalka waxa Soomaali loo yaqaano laakiin waxaa basically luqado ay qasab tahay inaad barato si aad xiriir fiican ula yeelato wax loo yaqaano AI maadaama aan ku horeyno dadka technical coding kale kow waxaa qasab ah saaxiib inaad barato waxa loo yaqaano data science which is under artificial intelligence waa qasab qofka haddii uu rabo AI inuu meel fiican ka gaaro ama background uu ku wado inuu data science yaqaano waxaa cilmiga labaad oo isagana qasab noqon doona waxa loo yaqaano machine learning qofku waa inuu yaqaano qaabka mashiinka wax loogu tababaro regressionka classificationka supervision maxaa la yidhahdaa non supervised waxyaabahaas oo dhan qofka inuu yaqaano iyadana waa qasab waxaa kaloo qasab saaxiib qofka inuu yaqaano waxa loo yaqaano NLP ama natural language processing oo iyadana ah qayb ka mid ah machine learning laakiin hadda maalmahan la kala saaro inaad ayadana taqaano waa qasab sidoo kale waxaa qasab waxa loo yaqaano inaad taqaanid ama aad baratid deep learning waxa loo yaqaano ama barashada qotada dheer iyadana waa qasab marka waxaad isweydiinaysaa waxaan almost imisa ay qaadan karaan waxaan ka afiifanayaa waxyaabahan aan kuu sheegay dhan barashadooda aan ku jira ma ihi qof dhameeyey oo ka farxashay oo wada bartay ma ihi waxaan ahay dadka yacni jecel markay ayagana wax baranayaan maxaa la yidhahdaa dadka waxay baranayaan parallelkan inay ugu sheekeeyaan saa daraaddeed baan xoogaan kuula wadaagaya marka data science waa qasab machine learning waa qasab deep learning waa qasab LMB waa qasab waa dadka technical background iska leh ama IT-ga sida loo yaqaano waxaa kaloo qasab inaad barid saaxiib yaal waxa loo yaqaano luqadda ugu muhiimsan marka AI-ga laga hadlayo oo iyadana Python ah intaas waa qasab okay marka how long it takes waa su-aasha ugu muhiimsan cabdiyo bara waana dhahday laakiin su-aashu waxay tahay imsaa bilood imsaa sano imsaa maalmood ayay qaadan kartaa basically waxaan isleeyahay waxyaabahaas aan kuu sheego oo dhan barashadooda 2 sano way kaaga filan tahay haddii aad waqti gelisid maalin kasta 2 saacaad waqti gelisid almost 5 cilmi ama 4 cilmi way kaaga baahan yihiin 2 sano waa kusoo gabagabeyn kartaa waa haddii aad technicalka background fiican aad u leedahay oo horey ay IT usoo hayd
oo laakiin aadan waxyaabahan familiar la ahayn ood hadda bilaabayso 2 sano ay kaaga filan tahay. waa 2000 waxaa la gelayaa 26 27 inaad dhammaysid oo aad ka farxisho dhammaadkeeda December ayaa suuragal ah hadda bilowday. Okay, halkeen ka baran karaa waa meelaha ugu muhiimsan. Horta waxyaabo waxaa jiro macallin loo qabsado oo macallinku bari karo, iyo waxyaabo waxaa jira adiga ay YouTube-ka ka baran karto. waxyaabahan hadda kuu soo sheegay dhan haddii aad nood garaysatay dhammaantood waxaad ka baran kartaa YouTube-ka, because macallinka ugu muhiimsan ee hadda aa haysato waa YouTube-ka. waa isla AI-ga naftirkiisa hadda kuu dirayo ayaa macallinka ugu weynaya. saa daraaddeed koorsooyinkan maadaama hadda kuu sheegay maadaama YouTube-ka ayagoo free ah oo maxaa la yidhahdaa playlist ku wada jiro aad helaysid, kuma dhahayo macallin qabso macallin ka warkeen kuma dhahayo, laakiin waxaan ku leeyahay waqti samayso, maxaa nood garayso waxaad baranayso. saa daraaddeed kadibna markaad yacni nood garaysato oo playlistiga aad diyaarsato maalinkii qaabka wax u baran lahayd saacadihii yacni schedule-kaaga aad samaysato, waa hubaa inaad yacni aad helayso meel aad si fiican ugu barato. YouTube-kan waa macallin weyn oo wax kasta laga baran karo, anigaba hadda YouTube-kan ka barta. Okay, waxaa soo haray marka dadka non technical coding-ka adinka qaabkee AI-ga ku baran kartiin. wadada keliya oo dadka yacni ama management bartay ama social science si guud fieldigaas bartay ama accountant bartay ay macnaha ku baran karaan AI-ga waa in AI-ga la soo saaray ay isticmaalaan. Yes, dadku laba nooc ay u kala qaybsamaan. qofna wixii la soo saaray ayuu sii isticmaalaa, qofna hawshii la soo saaray ayuu ka dhacaa. waxaan ka wadaa imagine laba qof oo accountant ah oo qofna isticmaalayo AI math calculator ah, qofna uu gacantiisa isticmaalayo. You can just guess which one come first. waa qiyaasi kartaa qofka marka koowaad waxaa waaye shaqada dhammayna waad qiyaasi kartaa. marka weyga keliya oo qofka oon macnaha background-iga IT-ga lahayn uu ku baran karo AI-ga waxa loo yaqaano waa in AI-ga lasoo saaro uu isticmaalo isagoo ku base garanaya based on his work. macnaha shaqaalaa tahay, macallin baa tahay ama wax kalaa tahay, haddii howlahaagu dhan aad AI dependent ka dhigto, waxaan hubaa I believe 100% waxaan hubaa qofka AI-ga sameynaya iyo adiga farqiga inama dhexeeyo. maxaa yeelay qofka Facebook iskale iyo qofka dadka isticmaala hadda farqi uma dhexeeyo, because asagana account uu ku leeyahay, dadka isticmaalana account bay ku leeyihin. marka qofka ay soo saaro AI-ga iyo qofka isticmaalo somehow isku knowledge ayay noqon karaan haddii qofka macnaha maxaa la yidhahdaa aanan hawshan sameynin background ahaan asaga soo saarin uu hawsha lasoo saaray uu isticmaalo. saa daraaddeed xalka ugu fudud ee qofka aan background AI lahayn uu ku baran karo AI-ga waa inuu isticmaalo ChatGPT-ga lasoo saaro inaa isticmaasho, applicationada loo yaqaano generative AI waa inaa isticmaasho, sidoo kale LLM-ka waa inaa isticmaasho, language modeling waa inaa isticmaasho. waxyaabahaasoo dhan baa lagaaga baahan yahay isticmaalkoodii. meel kasta oo aad ku aragto application AI ah waa inaad dhahdaa how siduu ku shaqeeyaa waxan, bal ma isku dayaa waa inaad dhahdo waayo. kadib waxaa noqonaysaa qof fit ku ah arrimahan oo dhan oo isagana dhankiisa lagaga soo hagaago inuu arrimahan wax ku darsado. laakiin haddaad yacni isticmaali weydo aadna ka shaqayn weydo, I believe nolosha horeyna dad baa ugu soo haray, hadda cilmigan trainingkana waa ka haraysa. marka waanadeydu waxay tahay haddii aad non technical IT background tahay ama aadan macnaha background IT lahayn, wax kasta oo lasoo saaro application waa inaad tijaabisaa, waa inaad isku daydaa, waa inaad ka warkeentaa. waxaan malaynayaa labadaas qaab waa labada qaab oo dadka si guud ay cilmigan u baran karaan. waxaan aad u dhiirigelinayaa dhalinyarada background-iga IT-ga leh ee rabo fieldigan in macnaha ay hadda ka warkeenaan. fadlan ha dhayalsanna cilmiyadan kuusoo sheegay. data science hadda waa muhiim, machine learning-ku waa muhiim, deep learning-ku waa muhiim, language processing-ku waa muhiim ama NLP wax loo yaqaan waa muhiim, generative AI waa muhiim, agent AI waa muhiim. waxyaabahaasoo dhan waa muhiim. marka cilmiyadan kuusoo sheegay dhammaantood hadba inta aad ka baran karto ka baro. mustaqbalkana I believe waxaad noqon doontaa maadaama cilmigan uu hadda cusub yahay dadka koowaad ee ka faa'iidaystay oo meel kasta lagu yaray aad noqon doontaa. insha Allah waxaan rabaa inaan isku dayo hadda kadib in 99% muuqaalada aan soo gudbiyo ay noqdaan dhanka AI-ga maadaama cilmigaas hadda uu dhalinyarteena Soomaaliyeed muhiim u yahay. ilaa dhamaadka hadaan la soo gaartay fadlan channelka subscribe sar, sidoo kale muuqaalkan oo like garay. aad iyo aad u mahadsantahay inaad macnaha share garaysan waa muhiim si muuqaalku uu meel dhexe meel sare uu u gaaro. dhalinyaro badan waxaa jira YouTube-ka intay imaadaan magacaygu soo qoraan iska kay daawado haddana iska tago. waa kuwa ceeb adoo subscribe isaaran fadlan inaa meesha ka tagtid. dhalinyaraan is taageerno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.